بسم الله الرحمن الرحيم. anagoo ah baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug markii aan aragnay warqadii ka soo baxday warkii qoraalka ahaa ee ka soo baxay xafiiska wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah markaan warqadda si dhab ah u akhrinay macnaheeda aad u dhuuxnay waxaa inoo soo baxay in ay xambaarsan tahay arrimahan soo socda kow inay xambaarsan tahay hanaanka federaalismka ah ee dalku hadda uu ku shaqeeyo inay wasaaraddu ay garab marsan tahay oo aanay rumaysnayn ku shaqaynta hanaanka laba waxaa inooga muuqday inaanay wasaaraddu rumaysnayn jiritaanka iyo sharciyadda dowlad goboleedka Galmudug inaanay rumaysnayn taasina waa arrin ku tumasho ah oo si cad oo bareer ah ay wasaaraddu ugu tumanayso sharcigii iyo dastuurkii iyo hanaankii dalka u degsanaa marka wax yar haddaan ka taabto sida aysan u aqoonsanayn jiritaanka dowlad goboleedka Galmudug dowlad goboleedka Galmudug waa dowlad goboleed u madax bannaan arrimihiisa gudaha oo ay ka mid yihiin arrimaha doorashooyinku habka ay hadda wasaaraddu uga hadashay wuxuu la macno yahay habka loo dhiso marka dowlad goboleed bilow la asaasayo in dowladda dhexe intay farsamo samayso guddi farsamo qorshe iyo barnaamij samayso sidaa ay wax ku dhisto waa sida marka dowlad goboleedyadu ay bilowga yihiin wax loo dhiso iyadoo weliba sharciyo la cuskinayo laakiin mar haddii dowlad goboleedku uu dhismo si sharci ah arrimihiisa gudaha isagaa u madax bannaan waxa uu leeyahay guddi doorasho guddigaas ayaana waajibaadkiisu u yahay guddigaas madaxa bannaan inuu doorashada dowlad goboleedka Galmudug isagoo ku hoos shaqaynaya hoggaankiisa inuu qabto si hufan oo xalaal ah iyo waqtigii yani dowladdaasi ay xalaasha ahayd doorashadeedu haddaba mar haddii qoraalka wasaaradda ka soo baxay uu noqday mid ka hor imaanaya qodobadii dastuuriga ah oo dastuurkii ku tumanaya macnihiisu wuxuu noqonayaa waxba kama jiraan waa qoraal aan sharciga waafaqsanayn sida ku cad qodobka 8 faqradiisa 1 ee dastuurka dowlad goboleedka Galmudug oo tilmaamaya saraynta sharciga iyo sidoo kale qodobka 120aad oo qaab dastuurka dowladda federaalka ah oo isaguna tilmaamaya heerarka dhismo ee dowladda yani dowladda federaalku ay u dhismayso dhammaan qodobadaas oo dhan ayuu ka hor imaanayaa qodobkaas 8 oo saraynta tilmaamaya wuxuu caddaynayaa haddii war ka soo baxo ama amar ka soo baxo xafiis dowladeed ee aanu waafaqsanayn dastuurka inuu wax kaba jiraan yahay waxaan caddaynaynaa dowladda federaalka arrinta hadda ay sheegayso ay leedahay hadda ayaan waxaan samaynaynaa guddiyaal Galmudug dhisa oo doorasho u diyaarsha waxa weeye sharci darro aan geedna loogu soo gaban weeye waxaan aad iyo aad ula yaabanahay dowladdii dhammayd oo laga sugayay inay ummadda isku keento oo dalka iyo mataqaanaa shuruucda inay ilaaliso in ay noqotay dowlad dadka isku baabi'inaysa waxaa la yaab leh nin oo shaqadii laga eriyay muddo hore oo xildhibaan caadiya ah oo aan guddoomiye ahayn inay maalin walba meel inta soo istaajiyaan ay yidhaahdaan Galmudug baa lagu duminayaa Galmudug buu mataqaanaa u hadlayaa waa dhibaatada mataqaanaa la yaab kale oo mataqaanaa dowladda federaalka lagu arkay waxaa la yaab leh oo sidoo kale la arkay maamulkii iyo
ay ka soo baxeen xildhibaanadii ayaga doortay oo yani madaxweynaha ay ku yihiin iyo mas-uuliyadda maanta waddanka haysata in ay yidhaahdaan haddaan wax u aas-aasaynaa waxooda waxba kama jiraan. sidaas darteed waxaan leenahay dowladda federaalka dib ha iskugu noqoto, ha akriso dastuurka, ha akrisato shuruucda, dib ha ugu noqoto. waxa weeye haddii aan sharciga aysan ilaalin hadda iyaduna ma jirayso. dowladda federaalka waxaan ka rabnay inay galmudug ay garab siiso oo ay taageerto oo wax u qabato, laakiin dowladda federaalka waxay bilowday inay dhibaato ku samayso oo dowlad iyadoo dhisan oo abuuran ay rabto inay siira ka soo bilowdo. arrintaas kama aanaan filanayn, waana ka xunaa. waxaan dhihi lahayn dowladda dib ha isugu noqoto, waxa ay qoraysana ha ka fiirsato. dadku waa dad sharci leh, waa dowlad oo nidaam sharci lahan nahay oo maamula oo muxuu ahaa maamul goboleeda oo dhisan. annaga nidaamkayaga iyo doorashadayada kulli u madax bannaan sida shuruucdii xildhibaanadii iga horreeyey u akhriyeen. midda labaad, waxaan aada uga xumahay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka cali gacal oo aan ognahay inuu yahay xildhibaan ka mid ah xildhibaanada galmudug, in uu soo istaago meel intuu soo istaago uu yidhaahdo waxaan ahay guddoomiyaha baarlamaanka. aada iyo aad baan uga xumahay. waxaana leeyahay arrintaas dib uga noqo, xishood. ummadda soomaaliyeedna ha qaldin. guddoomiye ma ahid. haddaad rabto inaad guddoomiye noqotid waa soo martay. haddaad rabto inaad noqotid markii ay noqoto in doorasho dib loo doorasho dambe ay noqoto, imow saa shalay u timaado. laakiin hadda xilkii waa lagaa qaaday. annaga waxaa guddoomiye noo ah guddoomiye Ismaaciil, guddoomiyaha galmudug oo saxda asaga weeye. asagaan u aqoonsannahay, asagaa guddoomiyaha yagii ah. halka asagaana mataqaanaa taageersannahay. ummadda soomaaliyeedna waxaan uga digayaa meel kasta ay joogaan inay aysan qaladka ay nimankaas samaynayaan inaysan ku dhicin oo ay ka fiirsadaan.